madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi ballaaran oo uu ku helinayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kadib shirkii madasha wadatashiga qaran oo uu kaga qayb galayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam magaalada Muqdisho waxaana gegada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kaleeto salaan iyo soo dhaweyn kadib madaxweynaha Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وسفر شقوان كوشر لمقدشو إلهي نقود نقا كان نود نو كان بان أمة علينا سبحانه وتعالى. سفر كاسي وحنا ما نقول ولا دركسين هاي وحوها مضاشي وضتشي قرن. ولا جاها اللي لما كوري اللي حيطواني يسبدل كدعية يسيده ودعية إياه وقت جيسي. waxaan oran karaa xaqiiqahan waxay ahayd arrin jiitantay waqti qaadatay laakiin guul ku soo dhamaatay markaan leeyahay guul ku soo dhamaatay macnuhu ma aha qanaacada dadka oo dhan inay qabto oo qof waliba uu qanacsan yahay laakiin dadka dad baa matalayay waxbaan u soo talaan gaadhnay waa la tashaday waa laysu yimid meeshaan la dhaafi weynay yaan wax gaarsiinay waxa ugu muhiimsan wuxuu ahaa bal inaan la samaynin wixii la oran jiray muddo kordhis iyo muddo jiitanta wadankuna una khalkhal siyaasadeed gelin ay noqoto in la xadido waqtiga isbedelku uu dhacayo taana waxaan u malaynayaa communique-giina waad ku aragteen war shirki jiray war saxaafadeedkii waadna kala socoteen saxaafadda wixii xal loo arkay baan soo qaadanay haddii deegaanada qaar hal lagu daray iyo haddii laba lagu daray sideedaan hayna xataa haddii saddex ka mid leedahay lagu daray waxba kama qabo hadday Soomaali wax ku gaarayso hadday Soomaali midnimadeeda lagu ilaalinayo hadday Soomaali waxtar u tahay kursigan marka u dambaysa hal qof baa ku fadhiisan waxa laga yaabaa inuu qurbo joog ba iska dibadda ba iska aado markii shir yimaado waxa laga yaabaa reerkiisa inuu dheerayn waxa laga yaabaa inuu nin cidna waxba u qabanin laakiin aan aragtida guud iyo sawirka guud inaan qaadano mid asalkii Sabir Abdulqaadir Rasmi Sabir Honesty telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo.